Kusoo dhawaada maanta timo qurxinta waayo waa la iska qurxsadaa marka qaarkood timo. Maanta halkan waxaan isugu keenay faytamiin fara badan oo aragtan sida karkadeyda, xulbada, sidoo kale basasha. Waxaan kuru waa lagu dhanyahay meesha waa lagu dhanyahay biyaha saarka sida xabaare halkaas sidoo kale waxaa ku jirta sanjabiil baa ku jirta. Waxaan kuru maanta waxaan rabnaa timaha inaan ka soo saarno maasha Allah before Ramadan intaan la gaarin Ramadan Kareem kulligii dhamaan asxaabta cusub ay soo birtay maalmo baxan leeyahay kala laab kusoo dhawaad asxaabteedan hore ila joogtana iyaguna sidoo kale day maalin ku tahay sidoo kale maalin wanaagsan garab ku tahay galab wanaagsan. Maanta waxaynu soo qaadanaa nafaqadan waayo waxyaalo badan bay ka kooban tahay seedkaasina wallahi magaciisa ma garan laakiin waa dardareere isaguna madaxa wuu fiican yahay isagoo kaligiis xitaa madaxa waa marsan kartaa laakiin wax walba way ku dhanyihiin xulbadii everything waa ku dhanyihiin maasha Allah karkadeydii soo haddana waxaan ku soo shubayaa bariis ku soo shubaya waayo bariisku waa dareere ka bacdina aad iyo aad buu fiican yahay timaha wuu fiican yahay xulbada iyo bariiska daasleeshid waxaan kuru everything jajabka timaha ku gaaban wax kasta way ka saaraysaa waan kuru intaa yar meesha ku jirta as leedahay waana wax gurigaaga la wada helay ma aha wax ma aragtay banaanka loo raadinayo waxa daran u sheegay in banaanka loo raadin laakiin shayga hadii guriga ku dhex yaalo waa dhinaca kala galkariye saas uu soo baxay uu soo yara gursaday biyaha isagoo leeban kaga dhigaya waayo isagoo adeeg hadaa ka dhigtid wuu ku dhibayaa mashidmayo waayo shiiditaan buu marayaa. soo mashiinkana soo qaaday waxaan rabaa inaan soo shiido cabbaaran soo shiida saan soo baxay laakiin wuxuu leeyahay qolofti ama haddana waxaan ka dhigayaa soft inuu yahay timaha uu soo xabeeyelin yani timaha wax qashina ku haadha ma ogi dadku iska wada jeceliin waxaan soft saas spaces ka soo marasa yani saan hadda soo wada sameeyay koor soo sameeyay saa ka bacdina saan ku soo baxaa waa u jeedin kala dheer buleesa quruxda ah waxaan kurtimaha amrisid jajab iyo waxba ma isku arkisi yani timuhu qurux ku noqonaya wallahi isla maalinta ka mid maalintaas ka arkasa soo hada wiigi hal mastid ama bishi hal mastid kifaaya yani wuu kugu filan yahay waxaa daran inaan timaha wax nafaqa aadan u rukumin ama wax nafaqa aadan marin saliida saan u marsada hada jeceshay saliida aad u isticmaashad waa ku darsan kartaa laakiin saliida waxa ugu daraa suusan qalayn noqonin. soo halkaas nafaqadeeni noogu soo dhamaatay waxaan jeclaan lahaa before Ramadan inaad timaha iska dhistaan timihi quruxa waxaan kuri haddaad dabtid iyo haddaad ku fariisid labaduba si ululiya ayaa kuu soo baxaya sida banaanba Ramadan laamba nafaqadana aad iyo aad buu fiican tahay hadda koorniyadu kale duwan waa soo geliyay xag hoos kale meeshana waxaan tijaabinayay burkan oo magaciisa maxaa la dhahaa donut burkaas ma tijaabinayay maasha Allah sarbeeb soo baxay marka hore waa soo xishinaysaa ka bacdina saamba u daboolaysaa soo ku soo baxaya si yar ba u jarjaraysaa ka bacdina sida aan gacanta ku leeyahay ayaad u fidinaysaa meeshii laga rabay inaad ku fidisid ul iyo waxaas ma ku fidinaysid waxaa ku fidinaysaa gacmahaaga ul ku noqonaysa wallahi markaas sameeyay ka bacdi aroortii waxaa arkay iyadoo gacantii xanuunayso waayo maanta dhan aad sameynayso waxaas oo dhan aan gacanta ku soo sameeyay meeshana ku soo shubasa ka bacdina waxaa sameynaysaa mara saaraysa haddana markuu soo yaran maaragtay faxo camal ah haddana maaragtay soo qaadee ka bacdina koob haddana soo qaado koobkan soo qaaday waxaa rabaa inaan saa maaragtay yani ka yara bixiyo fixitaanka xooga u safaaxay meeshiisa haddana ku celinay haddana maaragtay cabaaran yara deynay intaan saliida ku gurinin laakiin doonad ka macaan waxaan ku wali ma sameynin maasha Allah doonadka waa doonad aad fudud waqtina ma ka qaadanayo laakiin xoogaa yar xashitaankiisa waa inaad ka yara fikirtaa waayo wax walba waxay ka soo bilowmaan xashitaanka yani xashitaanka haddii aad maaragtay aad u hagaajisid uu ku soo hagaagaya
gacantana sida aan kusoo lahaa kusoo dhihin furkaasaan soo qaaday furkaas yariiska ah kabacdina waxaan kaga dhex bixinayaa maaragtay inaan dhexda kaga bixiyaa raba haddii aad fur kale haysta ama furka macaanka haysta kaba si fiicanba ku samee haddii kale aan fur iyo waxba haysana fartaada saa u dhexgelinay qaybta kale ka soo saaray anaga Soomaali ana wax walba sameynay ma ogdo abaa soo hadeerna saliidan maaragtay waa soo dhameeyay saliida maaragtay ayaan ku soo guray soo baxo waxaan ku rindahaaga bes lee ku maalina laakiin inagu badan rabadaanta iska jecelnahay mandaasi donut sweet ko dhan baa la jecel yahay ayadana waxay rabadaantu kaga duwan tahay maalmaha kale way maalmaha kale ma karsan kara miyaa hadii lacal ay sarabaan hayn xitaa kalarkiisuna saas soo noqday loonkiisa saas soo noqday aragtid maasha Allah soo tijaabi marka u horeysa soo bilaabisidna iska ilaali inaad si xun u xashid hadaa si xun u xashid adiguna ma helisid wax qurux badan sideedaba burku ama donut ha ahaado xashitaanka ka soo bilow ma xashitaanka haduu ku wacnaado dhamaadkiisana ku wacnaanay insha Allah donutkeeni sidaas aragtina quruxda badan leh soo baxay kulli ani ahaanteedii dadka oo soo cunayna maasha Allah way feedback way ka soo celiyeen idinkana ma idin cunin laakiin dee indhahaaga ku macalina Soomaha waxa aragtid baa la sheegaa soo waxaa ugu talagalay in asxaabteena rabadaanta ay ka faa'iideystaan donutkan ka faa'iideyso maasha Allah wakana saan soo baxay soo ma aragtid yani intaanan wali dhisan garin saan soo baxay quruxda badan leh soo saddexdan macaan baan soo qaaday kan waa wada naqaanaa waxaan marsanaa roodhida ee marsanaa tulle kan waa macaanka oo wax walba lagu darsado yani keegayada waaweyn wax walba lagu karsado kan waxaa lagu darsadaa wacaanihiin caadiga ahayn hilwa soo intaasaan soo qaaday waxaan rabaa inaan isku soo qasaa kabacdina haduu ku adkaado dabkaas saare saas kugu soo dhalaala biyo dhan ha u dhaweyn biyo hadaa u dhaweysid uu ka xumaanaya istiraahid biyo waxa ku dar laakiin hadda dabka soo saartid digsi qaad dabka saar kabacdina ku soo shub saan ku soo baxaa kabacdina donutkaa soo qaade waa dhex galgalinay xogaa yaro inta sharaxsid waxaa laga yaabaa inuu maaragtay waqti ka qaato laakiin miiska markaa soo saartid rabadaanta waxyaalaha macaan la jecel yahay miiska markaa soo saartid dee qurux waad ka faa'iideysaa yani harka soo jiidasho badan inuu sameynayo badanaa donutka ciyaalkuna way jecel yihiin dadkeena way iska jecel yihiin maasha Allah saan soo baxay macaankii raandhada kaga soo shubay saan inoo soo baxay quruxda badan leh hadduu soo gaadho fiidiyogan ilaawin subscribe insha Allah